السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنة الكمرة كلا سودا وهذا أدي هذا ومهد سنتهين مانتا وإسنين وأنا أفرت بيش شناد ماي سنة كلا بدو كن إيه لحية اللباتنك مقال كان وحن ربائنا ندي كل وذاقو قرشيه مدحوين ترام وشالي كل واقعي إن مانتا باللابانا يو أو أها إن مريكن كوه ودونا يو إنو سوق البيو maraakiibta wadamada Iran ee isan cadowtinimada kala dhaxeeynin ee ku xaniban marinka Hormuz oo saaka rasaas ku bilowday Iran ayaa markab dagaal oo Mareykanka rasaas digniina u riday walow aysan ku dhufanin arintaasi saldhigga dhexe ee Mareykanka maxay ka yiraahdeen Iranna maxay ka tiri sidoo kale qorshaha Trump uu doonayo in si xoog ah uu ku soo mariyo maraakiibta ku xaniban marinka Hormuz Iran arintaasina maxay ka tiri qorshe saddex waji ka kooban oo Iran ay doonayso in lagu dhameeyo dagaalka Mareykanka iyo Iran ka dhaxeeya oo gabi ahaanba madaxweyne Trump uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin sidoo kale waan idin la wadaagaya sidoo kale Iran ayaa waxa ay maanta soo bandhigtay map cusub oo ay leedahay intaasi marinka Hormuz dhinaca Imaaraadka ilaa iyo Iran dhinaceeda inaga ayaa maamulayno maabkaasi cusub muxuu yahay Mareykanka uu sii daayay markabkii Iran ay ka qabsadeen bishii hore shaqaalahiina sidoo kalena dhinaca Pakistan mariyay isla markaana hadda Iran ay gaareen arrimahaasi oo idil ayaan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online uu ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan quraanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah quraanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad xaj mabruuq salaam group xajka sanadka waxay idin haysaa وتلو دولودا حرم مكة iyo Madiina loogana lugayn karo gaadida ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah wuxuu diinta waalidka oo geeriyooday aan awoodin iyo umreynta hadii aad tahay qof qaba baahi khaas ah waxa aan ka caawin doonaa gudashada acmaasha xajka fadlan wac WhatsApp number eber 965455927 mahadsanidin madaxweyne Trump ayaa maalnimadii shalahayd waxa uu soo qoray qoraal dheer oo uu ku leeyahay waxa aan bilaabaynaa howlgal loogu magac daray Operation Freedom ama howlgalkii xornimada waxaan doonaynaa in wadamada cadowtinimada aysan Iran kala dhaxeeynin oo maraakiibtooda ay ku xaniban tahay marinka Hormuz inaan halkaasi soo marino maxaa yeelay waxa uu yiri maraakiibtaasi cuntadii ayaa ka sii dhamaanaysa shaqaalaha saaran dhinaca nadaafaduna aad ay u sii leedanaysa marka waxa uu yiri cid kasta oo isku dayda inay hor istaagto maraakiibtaasi aan soo galbinaynana awood ayaan u isticmaali doonaa waxana uu sheegay in howlgalkan maanta oo isniin ah uu bilaabanayo sida qoraalkiisan uu ku soo qoray laakiin dawladda Iran arintaasi waa ay ka soo jawaabtay waxa ayna sheegtay cid kasta oo isku dayda in marinka Hormuz ay soo mariso maraakiib isla markaana si xooga ay ku soo mariso in ay Iran weerar kala kulmi doonaan gaar ahaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ayay u degeen sidoo kalena maraakiibta fadhisa marinka Hormuz waxay yiraahdeen cidii isku dayda amar la'aan dawladda Iran in ay dhaqaaqdo waxa ay la kulmi doonaan cawaaqib oo ah in maraakiibtaasi la duqeeyo hadaba saaka ayaa qorshihii madaxweyne Trump uu shalay ku dhawaaqay waxa uu dawladda Mareykanku ay isku dayday in ay bilowdo Iran ayaa markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay laba gantaal ku soo riday laakiin ma aysan ku dhufan oo waxay ahaayeen gantaalo digniina meel agtooda ayay ku dhufteen arintaasi saldhigga dhexe ee Mareykanka markii hore waxa soo baxday in labada gantaal ay markabka dagaalka ee Mareykanka lagu dhuftay laakiin saldhigga dhexe ee Mareykanka ayaa qoraalkan soo qoray waxa uu yiri sheegashada ay dawladda Iran warbaahinteedu ay sheeganayso iyo waliba ciidamada kacaanka ee Iran in laba gantaal ay ku dhufteen markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay arintaasi waa sheegasho waxba kama jiraan laakiin runta xaqiiqda waxa ay tahay in maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanku uu leeyahay aysan ku dhicin gantaalo ay Iran soo tuurtay waxana uu sheegay in ciidamada Mareykanku ay taageerayaan Project Freedom taasi oo ah in maraakiibta wadamada kale ee ku xaniban marinka Hormuz halkaasi Mareykanku uu soo mariyo laakiin waxa uu sheegay in go'doominta saaran dekadaha Iran ay sii jiri doonto marka
arrintaasi ayaa la isweydaarsaday oo waxa la leeyahay Iran doomaheeda dheereeya markabkaasi Mareykanku uu leeyahay ayaa waxa ay ku rideen laba gantaal oo digniin ah. Haddaba madaxweyne Trump arrintaasi qoraalkan ayuu bartiisa Truth Socialka uu goordhow ku soo qoray. Madaxweyne Trump qoraalkiisa waxa uu ku leeyahay Iran ayaa dhowr xabadood waxa ay ku soo rideen dhaqdhaqaaqa maraakiibta amaba howlgalka aan ugu magac darnay Project Freedom, taasi oo aan ku soo daynayno maraakiibta ku xaniban marinka Hormuz. waxaana ka mid ah markab xamuul oo laga leeyahay wadanka South Korea. waxaba laga yaabaa uu leeyahay hadda South Korea la joogo xilligii howlgalkan ay ku soo beeri lahayd. marka sidaas darteed waxa uu yiri waan tooganay doomo yaryar oo dowladda Iran ay ka soo riday gantaaladaasi ama sida ay ugu yeeraanba fast boats waa doomaha dheereeya. isla markaana waxa uu yiri wax ka harsan ma jiraan hadda doomahaasi oo waan burburinay. dhinaca kale waxa uu yiri markabkii South Korea waa uu soo dhaqaaqay wax dhibaatana ma aysan gaarin marinka Hormuz ayuuna soo maray. waxa uu yiri wasiirka dagaalka Pete Hegseth iyo taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka ayaa arrintaasina shir jaraa'id maalinta berri ah ka qaban doona subaxa hore. marka Trump sidaasi ayuu ku soo qoray bartiisa Truth Social. waxa uu sidoo kale soo dhigay sawirkan uu bartiisa Truth Socialka uu soo dhigay. waxa uu leeyahay dhinaca Mareykanka USA isaga ayaa madaxweynaha dhibaato lama gaarsiinin. waxa uu leeyahay ciidamadeena baddu 100% waa ay shaqeynayaan, ciidamadeena cirku 100% waa ay shaqeynayaan, gantaaladeena difaacuna 100% waa ay shaqeynayaan. laakiin dhinaca Iran waxa uu yiri hogaamiyahoodii waan dilnay dheed ayuu ku soo qoray calaamada gaduuda ee istilaabka ayaa saaran sida aad aragtaan. ciidamadoodii badda waan burburinay, ciidamadoodii cirka waan burburinay, sidoo kalena gantaaladoodii difaaca waan burburinay. sawirkaasina sidoo kale waa uu soo raaciyay. marka sida muuqata labada wadan wada hadalana dhinac ay uga socdaan, dhinacna sidoo kale waxaa laga cabsi qabaa in mar kale xilli kasta dagaal uu ka dhex qarxo. haddaba dowladda Iran shalay Mareykanka waxay u soo bandhigtay heshiis 3 waji ka kooban, waxaana madaxweyne Trump uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. haddaba heshiiskan wajigiisa koobaad muxuu yahay? wajiga koobaad wuxuu yahay in gabi ahaanba dagaalkan lagu soo gabagabeeyo muddo 30 maalmood gudahooda, guud ahaan gobolkana ay saameynayso oo Mareykanka iyo Iran kaliya uusan u dhaxaynaynin. sidoo kale waxaa ka mid ah in la sameeyo qaab caalami ah oo lagu xaqiijinayo in arrintan aysan mar kale dagaalkan uusan mar kale dib u soo laabanin. sidoo kale waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Iran in ay wada galaan heshiis ay ka midaysan yihiin oo ah in mar dambe cadawtinimadan aysan soo laabanaynin oo arrintaasi laga heshiinayo. waxaa sidoo kale heshiiskaasi ka qayb ka noqon doona in Iran ay samayso regional alliance iyo waliba Israa'iil, wadamada gobolka iyo Israa'iil inay xulufo ay la yeelato. waxaa sidoo kale ka mid ah wajiga koobaad ee heshiiskan ama hindisahan dowladda Iran Mareykanka ay u soo bandhigtay in si tartiib ah loo furo marinka Hormuz, isla markaana Iran ay ka saarto miinooyinka ay gelisay marinka Hormuz waliba iyadoo taageero ka helaysa Mareykanka. waxaa sidoo kale ka mid ah in si tartiib ah loo qaado go'doominta Mareykanku uu saaray dekedaha Iran, iyadoo sidoo kalena arrintaasina ay la xiriirto dib u furista marinka Hormuz. waxaa sidoo kale ka mid ah heshiiskan wajigiisa koobaad in dowladda Mareykanku ay ciidamadeeda kala baxdo guud ahaanba agagaarka Iran, isla markaana ay gabagabayso dhismaheeda dhinaca militariga ama ciidamada faraha badan ee bariga dhexe ay geysay. intaasi waa wajiga koobaad. wajiga labaadna waxa uu yahay sidoo kalena in gabi ahaanba Iran ay bacriminta uraniumkeeda ay joojiso muddo 15 sano ah. 15 sano kadib Iran waxay dib u bilaabaysaa bacriminta 3.6% iyadoo aysan jirin wax kayd ah oo ay samaysanayso. sidoo kale wajiga labaad waxaa ka mid ah in Iran gabi ahaanba ay kala furfurto, isla markaana ay burburiso waxyaabaha dhinaca nuclearka waxyaabaha laga sameeyo oo idil oo horey ay u haysatay. waxaa sidoo kale jiraya opshino kale oo uraniumka Iran midka oo horey u haysatay xitaa laga yaabo in wadamo kale oo dibadda ah la geeyo. arrintaasi waxaa ka mid ah hindisiyaasha ay dowladda Iran ay soo bandhigtay. waxaa sidoo kale ka mid ah in Iran ay dalbanayso qaababka looga qaadi karo cunaqabateynada horey loo saaray, iyadoo arrintaasina ku bedelanaysa in nuclearka ay iska dhaafayso. cunaqabateynadaasi waxaa sidoo kale ka mid ah in si tartiib ah looga qaado in lacagihii horey looga xanibay, isla markaana lacagahaasi la siiyo.
wejiga ugu dambeeya oo ah wejiga saddexaad ayaa wuxuu yahay Iiraan inay doonayso in wadahadal dhinaca istiraatiijiga ay la gasho wadamada Carabta iyo kuwa kale ee ku yaala gobolka si loo sameeyo gole ammaan oo Iiraan ay sidoo kale ay qayb ka tahay wadamada bariga dhaxana ay ku jiraan ama wadamada gobolkaasi ku yaala. Marka hindisahaasi ayay soo bandhigtay dowladda Iiraan, laakiin madaxweyne Trump waxa uu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Waa heshiis saddex weji ah oo dowladda Iiraan ay doonayso in dagaalkan lagu soo gabagabeeyo. laakiin sida muuqata madaxweyne Trump gabi ahaanba arrintaasi waa uu ka soo horjeestay. arrinta kale hadda oo maanta bilaabanayso madaxweyne Trump uu leeyahay waxaan doonaynaa maraakiibta ilaa iyo markii dagaalkan uu bilaabmay 60 maalmood ka hor marinka Hormuz ku xaniban maadaama cuntadayna ay kasii dhamaanayso dhinaca nadaafadana ay shaqaalaha saaran aad u leedato maraakiibtaasi. waxaan doonaynaa in maraakiibta aan qayb ka ahayn cadowtinimadan oo wadamada kale ay leeyihiin maadaama ay naga codsadeen in aan meesha ka saarno haddii Iiraan ay ka hor timaadaan aan xoog u adeegsano. arrintaasi waxaa laga yaabaa marka dagaal Mareykanka Iiraan ka dhex qarxa inay soo dedejiso. Iiraanna waxa ay leedahay anaga arrintaasi gabi ahaanba ma ogolin. Ibrahim Azizi oo golaha amniga qaranka Iiraan ka mid ah ayaa arrintaasi ka digay. wuxuu leeyahay faragelin kasta oo dowladda Mareykanku ay isku daydo in marinka Hormuz ay maraakiibtaasi soo mariso waxaan u arkaynaa xadgudub dhinaca heshiiskii xabajoojinta. waxaana uu sheegay in marinka Hormuz uu ku yaalo Persian Gulf isla markaana sidoo kalena baraha bulshada qoraalada uu soo gelinayo madaxweyne Trump aan lagu maamulaynin marinka Hormuz. marka waxa uu yiri anagu arrintaasi is-eedeynta ah gabi ahaan ma rumaysanin. marka waxa uu uga digay maraakiibta. dowladda Mareykankana waa u digay maraakiibta isku dayda in ay maraan iyagoo Mareykanku uu doonayo inuu marsiiyana arrintaasi waxa uu yiri maraakiibtaasi cawaaqib ayay la kulmayaan. marka xaaladdu waxay tahay foojignaan sare ayaa jirta iyadoo weliba sicirka shidaalku uu sare u sii kacayo. laakiin dowladda Iiraan waxay soo bandhigtay maabkan maanta oo ay leedahay waa maabkan midka cusub oo hadda dowladda Iiraan ay ku maamuli doonto marinka Hormuz. waxay leedahay dhinaca koonfurta Mount Mubarak oo ku taala dhinaca Saudka ilaa iyo Fujairah oo dhinaca Imaaraadka Carabta ah oo iyaduna ku taala dhinaca galbeedka iyo sidoo kale inta u dhaxaysa jasiiradda la yiraahdo Qashim amaba Quwayn oo Imaaraadka Carabta inta u dhaxaysa inaga ayaa maamulayna. maabkaasi cusub ayayna soo saareen waxayna leeyihiin intaasi marinka Hormuz xukunkeena ayuu ku jiraa. cidii ku xadgudubtana sidoo kale inaga tilaabo sharci ah ayaan ka qaadayna. sidoo kale markabkii MV Tuska oo Mareykanku bishii hore Iiraan uu ka qabsaday oo markab container sida ahaa ayay sii daayeen. halka sidoo kalena 22 shaqaalaha oo kuwii u dambeeyay horay shaqaale kale ayay mar sii daayeen. shaqaalihii u dambeeyana dhinaca Pakistan ayaa loo marsiiyay waana kuwa iyagoo waliba shaqaalihii dowladda Iiraan gaaray kuwii ugu dambeeyay oo markabkaasi saarnaa ilaa iyo 28 shaqaalaha ayay ahaayeen. qaybta kale horay ayuu Mareykanku u sii daayay. qaybtii u dambeysana hadda waxa ay gaareen wadanka Iiraan markii Mareykanku uu sii fasaxay. Mareykankuna waxa uu sheegay in arrintaasi ay tahay in labada dhinac ay isku soo dhawaadaan kalsoonina dhinaca Iiraan laga helo. marka waa wararkii ugu dambeeyay waxyaabaha soo kordhay haddii Alle idmo waa la soo socodsiin doona. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sidaayo nabadgelyo.